tiknoolajiyadu maalinba maalinta ka dambaysa daawadayaal way sii horumaraysaa oo waxaynan maskaxdeena ama maankeena ku soo dhacayn ayaa la samaynayaa. taleefanadu waa meelaha ugu waaweyn ee tiknoolajiyadu horumarka weyn ka samaynayso. haddaba fiidiyowga maanta waxaan daawaday kuugu soo gudbinayaa taleefanada ugu fiican uguna casrisan ee caalamka ee 2019 la sugayo. fiidiyowgan ma rabtaa daawaday inaad ka ogaatid taleefanadani waxay yihiin iyo shaqada ay qabanayaan. waxaan ku codsanayaa inaad subscribe saartid channelka fiidiyowgana aad like saartid ina sii share gareysay channelka si aad igu dhiirigelisaan inaan idin soo gudbiyo fiidiyo kuwan lamida mustaqbalka oo ka hadlaya dhankaas iyo tiknoolajiyada iyo waxa ku cusub caalamka. taleefanka koowaad ee daawadayaal aan idiin soo bandhigayo ayaa waxaa la yidhaha Galaxy X. Galaxy X magac male laakiin haynu bixino Galaxy X waayo X mar walba waxa loo qaataa waxa aan la garanayn wali magacii looma soo saarin taleefankan. taleefankan ayaa wuxuu leeyahay tablet, waxa uu leeyahay shaashad marka la furo noqonaysa tablet, marka la isku laabana taleefan caadi ah ku noqonaysa. shaashada taleefanka ayaa waxa ay leegtahay 7.2 inch. haddaba taleefankan ayaa waxa la sheegay inuu soo baxayo dhamaadka ama inta qayb dambe sanadkan. taleefanka xiga ayaa daawadayaal waxa uu yahay Nokia 9. Nokia 9 wuxuu ka mid ahaa taleefanadii la sugayay 2018 laakiin dib ayuu u dhacay oo waxa la sugayaa sanadkan 2019. Nokia 9 wuxuu kaga duwan yahay taleefanada kale inuu leeyahay 5 kameradood oo kamarad kastaba ay qabanayso shaqo u gaar ah. taleefankan dadka sugayay waxay sugayeen muddo badan waxaana la rajaynayaa inuu noqdo taleefan qanciya dadkii sugayay waqtiga inta leeg. taleefankan ayaa wuxuu ka mid noqon doonaa taleefanada ugu adag una fiican ee soo baxaya 2019. taleefankan saddexaad ee rabo daawadayaal inaan la wadaago ayaa wuxuu yahay Google Pixel XL4. Google Pixel XL3 wuxuu ka mid ahaa mid ka mid ah taleefooyinka ugu fiican 2018 inkastoo yeeshay dhaliilo kuwaas oo ku sababay inay saameyn ku yeeshaan sumcadda silsiladan oo ay dadka qaar yiraahdaan shirkadda Google ma jecla inay soo saarto taleefano fiican oo waxay doonayaan magacooda inaan suuqa laga saarin sidaa darteed bay u soo saarayaan taleefano noocan oo kale ah. taleefanka Google Pixel XL4 ee soo baxay 2019 ayaa waxa la rajaynayaa inuu noqdo mid ka fiican kii soo baxay sanadkii hore ee Google XL3. waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgan. hadday markan timerkii kuugu horeysay soo boqoto daawada fiidiyowgan waxaan ka codsanayaa si sharaf leh inaad subscribe iyo saartid channelka fiidiyowgana aad like iyo saartid lana sii wadaag asxaabtaada si ay u ogaadaan waxyaabaha soo socda 2019.